بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام يا دمانتين انت كبعدي جيد كان وحواي جيد كقرآن كاللغو الشاقي وحانا لغسو صارا سليدها أدونك أغو قالسا وحال يراهدا زيتون كسومالة كأو يقانان معها kan baa la yiraahdaa zaytuun wuxuu noqonayaa geed weyn oo la ekaani karo sida geedka liinta oo kale marka geedkan wuxuu ugu duwan yahay liinta cimrigiisa wuxuu gaari karaa boqolaalo sano oo maaragtay cimri dheer uu leeyahay quraankana waa lagu sheegay marka waxaan rabaa inaan Soomaaliya maaragtay aan keeno si tijaabo ahaan oo lagu tijaabiyo hadduu Allah ii garto insha Allah bil kariim marka geedkan wuxuu leeyahay varietyaal fara badan marka kan waxa la dhahaa koronaki kanna waxa la dhahaa arbuzana kanna waxa la dhahaa arbikina la dhahaa kanitana waxa waaye tufaaxi waa zaytuun tufaaxi marka zaytuunka waxay u kala baxaan laba nooc oo maaragtay laga sameeyo muqallalaad waxa la dhahaa qamiiris waxa oo maaragtay la qamiiriyo oo zaytuunka la qamiiriyo noocna saliidu ku fiican yahay sidaas ay u kala baxaan markaan cilmi baaris aan ku sameeyay geedkan waxa la ii sheegay Allahul musta'aan inuu u baahan yahay qabowga waxa laga wadaa frost yani ma aragtay 30 cisho oo qabow oo baraf oo kala camal ah loo baahan yahay -degree ama 0 degree inuu ahaado marka frostigaasaytana ama qabowgaasayta Soomaaliya ma laha maadaama uusan lahayn Soomaaliya waxa la dhahay miro ma soo saarayo hadduu miro soo saarana waxa macna lahayn ayuu soo saaraya laakiin hadafka waxa waaye in ma aragtay geed barakeysan oo quraanka lagu sheegay oo Ilaahay ma aragtay hatta uu ku dhaartay watiini wazaytuun tiinka la soo hormariyay tiinka Soomaaliya waa keenay zaytuunkiya marka hadda ku xijinaya sida quraanka lagu sheegay marka in ma aragtay geedkan aan Soomaaliya keeno oo quraanka lagu sheegay goobo muayyan oo ma aragtay suuradii kalena ma aragtay suuratu nuur oo lahay Allahu nuuru samaawaati wal ard mathalu nuurihi kamishkaatin fiha misbah المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم marka geedkan waxaan u keenayaa Soomaaliya tijaabo ahaan hadii lagu guuleysto oo ma aragtay afartaas nooc oo mid guuleysto waxa la ogaani karaa marka geedka noqonayo midka guuleysanayo in oo la sii badiyo noocaas oo Soomaaliya lagu beero ama midka la qamiiriyo ha noqdo mise midka saliida midku ahaadaba in la badini karo oo ma aragtay Soomaaliya meelo ma aragtay badan lagu beeri karo sidoo kale waxa xusid mudan Soomaaliya dhulkeeda Muqdisho iyo koonfurta maaha Soomaaliya dhulkeeda waa weyn yahay oo dhulka Soomaalida degto idil waaye marka dhulka Soomaalida degtana waxa ku jira dhul fara badan oo ma aragtay qabow oo buuraley dhulkaasaytan waxaan u soo jeedinayaa geedahan oo ma aragtay oonka u adkeysan karo ma aragtay qalalka u adkeysan karo oo ma aragtay dhul oo raf xataa ka bixi karo in lagu beero oo ma aragtay sidaasaytana lagu badiyo oo lagu baahiyo oo dalka ma aragtay hadii hal meel yani lagu guuleysto in ay ma aragtay zaytuunkan uu ka soo baxo Soomaaliya oo dhan ay faa'iido u tahay halkaas meel in la taageero oo lagu beero oo beeraleyda ma aragtay goobahaas muayyanka dhulka qaboobaha Soomaalida degto ma aragtay in oo markaasayto ay noqdaan meesha asalka ah oo lagu beero geedahan oo ka bacdina ganacsi ahaan laga faa'iideysto Soomaalida kale loo gudbiyo sidaan la socono hadeer saliidda zaytuunka waa qaali waaye hadii dhulka Soomaaliya lagu beero waxa la heli karaa dhul ma aragtay yani lacag fara badan oo saliidaas noogu bixi jirtay inaan kaydsano oo dalka gudihiisa aan ku beerano adduunkii hadeer wuxuu ku tashanayaa isku tashi iyo ma aragtay inuu ma aragtay wadanka gudihiisa wax walba laga soo saarin karo marka Soomaali meelay ahaataba ha ahaatee waxaan ku dhiirinayaa in ay ma aragtay geedaha
khaasatan kuwa ganacsiga geli karo sida geedkan oo kale camal tijaabadana waxaa geli karo maxaa la dhahaye wasaaradaha beeraha. marka wasaaradaha beeraha oo Soomaaliyana way hurdaan run ahaantii oo ma aragtay kun geed ama Somaliland ha ahaato ama Puntland ha ahaato ama midka federaalka ha ahaato حتى قوة ديجانك ما أركت هدي اللي قدروا يجبوتي حتى ما أركت مرسي أيك حتى ويهردان إلهي وحن كبرينا إنه إلهي ما أركت سوفيجيو أنا ما أركت إنه قلادان أرمها تجابوينك حدر ما أركت أنا كانوا جيدهان وحقيقة بحايا وقت يجهدي يلعق يوحول بو لكن وزارة مالية يبجت إلهي سيي waxay awoodi kartaa inay ma aragtay maxal lahayay meeshan ani afart aan ka keenayo kun geed oo kala camal inay keensato hatta keensan inay ma aragtay 20 xabo kale intay keensato ee dhulka ku beerto ee dad ku fangareyso oo haddii ma aragtay